bilowga filimka waxaynu aragnaa gabar da'yar oo gift la yidhaahdo taasoo iyada iyo wiil kale ay daroon yar kaxaynayeen. Hamigeeda ugu weyn waa inay aviation ka barato oo ay duuliye diyaaradeed noqoto, balse iyadu waxay ka murugaysnayd waalidkeeda oo la rabay inay kuliyad kale dalka dibaddiisa ka barato. Maanta waa maalintii dhalashadeeda oo waalidkeed ayaa dhankii garoonka diyaaradaha u soo kaxeeyey si ay magaalo kale ugu soo dabaaldegaan. Gift aabbaheedu waa mid naxariis badnaa, laakiin hooyadeed waxay ahayd mid keliya danaysa ganacsigeeda oo xitaa baahida qoyskeeda ay ka hormarinaysay. Gift hooyadeeda Fen ayaa la arkaa iyadoo qof macaamiil taleefan kula hadlaysa. Ninkeeda Jamres ayaa kula taliyay inay taleefanka yareyso si ay gabadhooda maalinteeda ugu qurxiyaan. Meel kale waxaynu aragnaa koox ka tirsaneyd shaqaalaha diyaaradda oo garoonka sii galaya. Kooxdaas waxaa ka mid ahayd haweeney New lagu magacaabo. Dhowr sano ka hor waxay iyadu ka badbaaday shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa markii iyada laga reebo. Indhaha ay isku qabatay markii musiibadaas dhacaysay oo si mucjiso leh ay u badbaaday. Tan iyo waqtigaa waxay iyadu qaadanaysay dawooyin fara badan si ay maskaxdeeda u dejiso. Duulimaadkani wuxuu noqon doonaa duulimaadkeedii ugu horreeyay tan iyo dhacdadaas naxdinta leh. Rakaabka duulimaadkan ayaa la arkaya iyagoo diyaaradda terminaalka ku sugaya. Waxaa dadkaasi ka mid ahaa gabar Aana lagu magacaabo oo si qaab daran u labisneed. Waxay iyadu ag fadhiistay wadaad buudista ah kaasoo qaabkeeda dhibsaday oona boos badashtay. Muuqaalka qaybtiisa xigta waxaana la tusayaa injineero hubinaya badqabka diyaaradda. Baanka ayaa xaqiijiyay in xaaladda diyaaraddu ay tahay mid wanaagsan oo ayna duuli karto. Mar kale terminaalka Aana waxaa dhibaya nin Ameerikaan ah oo si saqajaanimo leh gacanta ugu qabtay si uu u eego tiidhkeeda. Nasiib wanaag Weef ayaa u soo gurmaday oo ninka u sheegay inuu meesha ka dhaqaaqo. Waxyar kadib waxaa la arkayaa dhammaan rakaabkii oo diyaaradda raacaya. Gift waxay fadhiistay gadaasha waalidkeeda, laakiin murunkooda ayaa dhibsatay oo kursi kale ay aaday. Bank oo bannaanka diyaaradda taagnaa ayaa si lama filaan ah u maqlay dhawaqyo qariib ah. Wuxuu furay qaybtii xamuulka si uu gudaha u eego. Si lama filaan ah waxaa gadaashii uga soo muuqday muuqaalka shay aan la aqoon waxa uu yahay. Wuxuu isku dayay inuu albaabka baxo, laakiin wuu argagaxay markuu ogaaday inuu xiran yahay. Wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo albaabkii garaaco, laakiin ma jirin cid qayladiisa maqashay. Isagoo argagaxsan ayuu gacan kula hadlay shaqaalaha diyaaradda si ay u caawiyaan, laakiin wax jawaab ah oo uu ka waayay. Gudaha diyaaradda Nuu waxay daryeel u muujisay islaan waayeel ah oo rakaab ka mid ahayd, waxayna asxaabtii la shaqaynaysay kula dardaarantay inay maamadan u naxariistaan. Shaqaaluhu ayaa iyagoo qabka ciyaar sameynaya ee rakaabkii u sharxayeen sida ay suumanka badbaadada u xiran karaan oo sacab ayaa looga falceliyey. New waxay mar kale la xiriirtay duuliyaha oo inay kacaan ay isu diyaariyeen. Dhankale Bank wuxuu weli ku xirnaa qaybtii kaargooga. Dabeed Prince oo isku dayay inuu sanduuq furo ayaa kari waayey. New ayaa u sheegtay inuu dhinac u leexdo oo Fer ayaa dusha sare kaga garaacday sanduuqii. Isla waqtigaas waxay dib u xasustay duulimaad hore markaas oo ay koob raadinaysay. Si lama filaan ah waxay aragtay muuqaal yaab lahaa oo intay qaylisay ay gadaal u booday. Shaqaalihii kale ayaa argagaxay oo isku dayay inay dejiyaan. Markii ay kushiin ka soo baxday New ayaa timid qaybtii rakaabka. Intay sii socotay raadad dhig leh ayaa sagaxada ka soo muuqday kahor inta uusan si degdeg ah u baabi'in. Waxaa dibna loogu celinayaa Bank oo jahwareersan. Kahor intuusan dhulka ku dhicin waxaa u suurtagashay inuu batan riixo. Dhan kale Weef oo musqusha kale ayaa intuu gacmihiisa dhaqay leerarkii musqusha ay bilaabeen inay dadamaan. Waxaynu aragnaa in dhammaan leerarkii diyaaradda ay sidoo kale dadamayeen taasoo argagax ku abuurtay rakaabkii. Weef intuu wejigiisa dhaqanayay waxaa gadaashiisa si lama filaan ah uga soo muuqday laba gacmood oo wejiga ka xoqay. Wuxuu u muuqday mid aan waxba dareemin oo weji dhaqistiisii ayuu iska sii watay. Si lama filaan ah ninkii Ameerikaanka ayaa hal mar istaagay. Shaqaalihii diyaaradda waxay isku dayeen inay fadhiisiyaan, laakiin waxaad mooddaa in ninkan ay ruuxaan la shaqaynayso. Wejigiisu xidido ayaa ka soo baxay oo madaxiisana waa uu wareegsaday. Qortiisa ayaa jabtay oo dhulka ayuu ku dhacay. Kadibna shaqaalihii ayaa ku celiyay kursigiisa oo waxaad haatan mooddaa in wixii ku soo degay ay ka baxeen. Weef oo dib ugu soo laabtay kursigiisa ayaa Aana ay aragtay in wejigiisu uu meel ka jeexan yahay. Markuu wejigiisii taabtay ayuu mid ka mid ah shaqaalihii ka codsaday inay faashad u keento, laakiin si la yaab leh waxay ku wargelisay inuusan waxba qabin. Markuu eegana muraayaddii daaqadda dhaawiciisa hal mar ayuu baaba'ay. Qaybta shirka diyaaradda ama cockpit-ka duuliyaashu waxay fahmi waayeen wax sababa in batankii cadaadiska hawada kontaroolay uu bigleeyo. Mid ka mid ah duuliyaashii ayaa aaday qaybta xamuulka si uu u baaro wax jira. Wuu ka naxay markuu Bank halkaas ku arkay oo wuxuu ka saaciday inuu gudaha diyaaradda soo galo. Waxyar kadib dhammaan rakaabkii neefta ayaa dhibaysay. Nuu oo ay Bank weydiisay wax jira ayaa ku jawaabay in diyaaraddu ay oksijiinta ka dhammaanayso. Wuxuu faray inay haanta oksijiinta bannaanka u soo saarto. Markay baxday waxaynu aragnaa Bank oo maaskaradii oksijiinta rakaabka u fasaxaya kahor inta uusan miir beelin. New markay soo noqotay waa argagaxday markay aragtay in badi rakaabkii ay goor horeba suuxeen. Intii ay daawanaysay waxay aragtay miis u muuqday inuu keligiis soconayo. Ruuxaan miiskan riixiisa ayaa rakaabkii weydiinaya cabitaanka ay jeclaan lahaayeen inay cabaan. Muuqaalkii ruuxaantan ayaa si dhaqso leh u baaba'ay oo rakaabkiina dib ayay u soo miirsadeen. Nasiib darro laba ka mid ah shaqaalihii ayaa mar horeba dhintay. Bank wuxuu isku dayay inuu albaabkii shirka ama cockpit ka furo, laakiin waa uu awoodi waayey. Wuxuu New ka codsanayay galaan qaybta xamuulkaas si ay u hagaajiyeen qalabkii cadaadiska hawada kontaroolaya. Haddii ay sida samayn waayeen qof walba halkan ay ku dhiman doonaa. Fen ayaa bilowday inay argagaxdo oo ay qof walba ku qayliso.
iyadoo ku qalinaysa islaantii waayeesha ayaa ayna ay soo dhex gashay oo ay maamada difaacday. haddana mar kale Fane waxay ku qalisay Gift taasoo inanta ku qasabtay inay kacdo oo ay Prince ag fadhiisato. Prince ayaa u sheegtay inay wada dhimanayaan oo waxay ka codsatay inuu caawiyo cabitaan taasoo uu ka diiday. muuqaalka waxaa markaas naloo wareejinayaa Bank iyo New oo isku dayay inay hagaajiyaan qalabkii kontaroolaya cadaadiska hawada. New oo ay haanteedii oksijiinta ka dhammaatay ayaa ku dhawaatay inay suuxdo. nasiib wanaag Bank ayaa tiis la wadaagay oo badbaadiyey. Gift oo aabaheeda la fadhiisa ayaa waalidkeeda ku eedaysa dhibaatadan haysataa. wuxuu aabuhu ku jawaabay inay kaliya rabeen inay maalinteeda dhalashada u qurxiyaan. laabta ayuu cunugtiisa geliyey oo iyaduna way usay. markuu bilaabay inuu qaado heestii Happy Birthday ayaa waxay maqleen codad gadaashooda ka imaanaya. waxay arkeen miis daaha gadaashiis ka soo socda. Wave ayaa intuu kacay oo dib u celiyey miiskii. isla markiiba Anna waxay bilowday inay ruuxmato sida inay ruuxaan ku soo degtay oo kale. intay kacda ay dadkii weydiinaysa halka ay New aaday iyadoo ku eedeynaysa dhibaatadan ay ku jiraan. dabeed mar kale ayay gariirtay oo kursigeeda ay ku laabatay sida in jirkeedu uu qof ka baxay oo kale. xaaladii diyaaradda ayaa kasii dartay oo rakaabka qaarkood ayaa miir beelay. Fane waxay garaacday albaabkii shirka laakiin wax ka fura ayay weysay. muuqaalka ruuxaanta reer aakhirad daran ayaa diyaaradda ka soo dhex muuqday kadibna hal mar ay wada baaba'een. qaybta xamuulka Bank waxaa suurtagashay inuu hagaajiyo qalabkii kontaroolaya cadaadiska hawada. gudaha waxay ogaanayaan rakaabkii oo soo miirsaday laakiin Prince ayaa ogaaday in islaantii waayeesha ay goor horeba dhimatay. markii New iyo Bank ay gudaha kusoo laabteen Fane ayaa New ku eedaysay inay mas-uul ka tahay dhibaato kasta oo diyaaradan ka dhex dhacday. Prince oo New si xushmad leh u weydiiyey waxa laga sheegayaa ayay ugu dambeyntii qaratay waxa jira. waxay New ka mid ahayd shaqaalaha diyaaradda 10 sano ka hor dhacday markaasoo iyadu kaligeed ay noqotay qofka shilka ka badbaaday. ma hubto in diyaaraddaasi ay tahay isla diyaaraddan oo toosh ayay isticmaashay si ay u hubiso. waxaa u cadaatay in diyaaraddani ay tahay isla diyaaraddii dhacday 10 sano ka hor. dhiig ayaa ku yaalay albaabka shirka waxaana si lanfilaana u soo muuqday ruuxaanta reer aakhireed taasoo dadkii argax ku beertay kuna qasabtay inay cararaan. si degdeg ah lamaan lagu magacaabo John iyo Michelle ayaa isku xiray musqusha si ay u badbaadaan. intuu khallaasaan socday Anna ayaa dhulka ku dhacday oo Wave ka baraday inuu caawiyo. Wave ayaa iska nitiray oo dhankii musqusha ay u sii orday laakiin wuu ka tagi waayey oo wuxuu go'aansaday inuu Anna u soo laabto oo uu caawiyo. wuxuu arkay inay iyadii ruuxaan ku dhex jirto oo isagoo aan doorasho kala haysan ayuu haantii dadamsi ku garaacay. Wave dhankii musqusha ayuu ku noqday. intuu isku dayay inuu albaabkii jibo ayuu si lanfilaana madaxii John u kala dhambalay. jirkii John oo miirla ayaa Michelle ku sababay inay biyaha madaxa gashato oo ay qaraqmato. si kastaba Wave ayaa ku guulaystay inuu John gadaal u jiido laakiin wuxuu ogaaday inuu dhintay oo madaxiisuna dilaacsan yahay. dhanka rakaabkii kale waxay isku dayeen shirka ama cockpit ka galaan laakiin ma yaqaanaan passwordkii albaabka lagu furay. Bank, Wave, New iyo Jamras ayaa bilaabay inay raadiyaan Gift oo si lanfilaan ah loo waayay. waxay ka raadiyeen dhankii xamuulka halkaasoo New ay oohin jabsatay. waxay soo xastay duulimaadkii aad kahor kaligeed ka badbaaday. waqtigaa waxay ku badbaaday inay indhahaas ku qabato markay musiibadaas dhacaysay wayna awoodi kari weysay inay cid kale caawiso. xusuustan daran ayaa weli iyada dhibtaa. muuqaalka waxaana loo celinayaa gudaha diyaaradda halkaasoo Fane ay miis isticmaashay si ay u disho wadaadkii iyo Michelle iyadoo ruuxaan u malaynaysaa. mar kale qaybtii xamuulka ruuxaan reer aakhireed ayaa kusoo wajahneed dhankii Bank, Wave, New iyo Jamras. New ayaa dadkan kula talisay inay indhahaas ku qabtaan laakiin Wave oo muuqaalka reer aakhireedkan ka xabsaday ayaa sida samayn waayey. intuu argagax ayuu faas u tuuray dhankii Prince isagoo u malaynaya inuu ruuxaantii reer aakhireed ka mid yahay oo halkaas ayuu ku dilay. dabadeed dhammaantooda waxay dib ugu noqdeen gudaha halkaasoo Fane ay si qalad ah Wave u dishay iyadoo ruuxaan u malaynaysaa. waxaad moodaa in Fane ay wax la shaqaynayaan oo waxay ku sigatay inay disho Gift oo armaajo ku dhex dhuumanaysaa. Gift ayaa aabaheeda isku duubtay maadaama hooyadeed oo si qariib ah u dhaqmaysa ay rabtay inay disho qof kasta oo kasoo horbaxa. waxay Fane isku dayday in ninkeedii weerarto laakiin Bank ay ka qabtay oo kursigii ay ku xirxireen. Bank wuxuu markaas faas ku dalooliyey qaybtii shirka. markuu geli waayay ayuu Gift ka codsaday inay gudaha gasho oo ay samayso wuxuu ku amro. inkastoo ay ka argagaxday muuqaalkii ruuxaanta ayaa haddana waxaa u suurtagashay inay riixdo batankii la rabay. isla markiiba diyaaraddu waxay bilowday inay si xoog leh u ruuxmato. rakaabkii ayaa soo taraaraxay oo miis ay mindiyaal iyo fargeetooyin saarnaayeen ayaa si xun u dhaawacay Fane. Bank oo orday qaybtii cockpitka ayaa dhinac u riixay meydkii duuliyaha isagoo isku dayay inuu diyaaradda dejiyo. dhan kale Fane oo ay ruuxaantii soo kicisay ayaa isku dayaysay inay New cejiso. si loo caawiyo Bank iyo Jamras ayaa wacay shaqaalaha airportkii u dhowaa oo duuliye diyaaradeed ayaa u sheegay sida ay diyaaradda u dejin karaan. kadib markii ay ku guulaysteen inay diyaaradda dejiyaan booliiskii iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa u soo degdegay caawintooda. ugu dambeyntii Bank, Gift iyo aabaheeda Jamras ayaa diyaaradda ka soo degay. waxyar kadibna waxay garwaaqsadeen in New ay maqan tahay. waxaa daha laga qaadaa in New ay dhimatay kadib markii ay Fane cejisay. muuqaalka qaybtiisa ugu dambeysa waxaynu aragnaa isla diyaaraddan oo la qorsheenay in la dayactiro si dib loogu isticmaalo iyadoon ruuxaantii New ay weli gudaha dhex fadhisay. magaca filimku waa 4 oo Seven Dark Flight oo soo baxay sanadii 2012. subscribe saar oo noo reeb like sidoo caawis kanaalka. intaan muuqaal ka lamid ah in ku kulmeyno sidaas nabadgelyo.